waxaa inoo bilaabanaya tafsiirka qur'aanka kariimka ah oo uu inoo akhriyo sheekh xasan ibraahim ciise dhegaysi wanaagsan aan ka faa'iidaysanno kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala annagoo xaafadaheenna guryaheenna fadhiyadeenna joogna ilaahay subxaanahu wa tacaala adinkana ay dib fududeeyo shiikha iyo inta shaqaynaysana u soo duceeya dhammaan walaalaha khayrka ka shaqaynahaya باركم الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فليتفضل مشكورا الشيخ حسن إبراهيم عيسى. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ولسورة الشورى أيان كجرنا وحنو قصو دنبيسي إلهي إنو يهي الله توبضع كأقبل أدو مديسة سيئاتكي قلداتك إيقالين كعفية وحو أقيهي وح الله لوح أتسمينيسان وحو كأجيبا ضدك مؤمنين تأه عملك في عن ليمت wixii khayro ay sameeyaan fadligiisana waa u siyaadiyaa. kaafiriintuna waxa ay leeyihiin cadaabun shadiidun, cadaab shadiid ahoo markaa adag. walow basata allaahu low uu basata allaahu ilaahay u fidin lahaa arrisqa, risqiga hadduu ilaahay u fidin lahaa licibaadihi addoommadiisa labaqow way qooqi lahaayeen fil ardi, arlada gudaheeda ayay ku xadgudbi lahaayeen. laakiinse yunazilu waa soo dejiyaa ilaahay biqadarin maa yashaa'u, qadar uu doono ayuu ilaahay soo dejinayaa, qadar iyo in go'an oo asaga uu doono. innahu ilaahay bicibaadihi addoommadiisa khabiirun, waa mid salkooda og, waa mid khabiir u ahoo guntooda la socdoo yaqaana. basiirun haddana arkaya subxaanahu wa tacaala. ilaahay addoommadiisa khabiir buu ku yahay, haddana waa arkayaa mid kasta waxa ku habboon ayuu ilaahay garanayaa. wuxuu ilaahay noo tilmaamayaa, aayaddanana loogugu tilmaamayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmadiisu inay tahay dadka inaan la simin xagga risqiga, qolana loo siyaadiyo qolana laga nusqaamiyo. xaaladaana waxaa loogu talagalay liyattakhida bacduhum bacdan sukhriya, dadka gobolkood gobolka kale inuu sukhri ka dhigto. ilaa in la helo dad loo shaqeeyo iyo dad shaqeeya, in la helo dad wax weydiista iyo dad la weydiisto. noloshu macaankeedaasaa ku jirtaa. idan haddii dadka oo dhan loo fidin lahaa risqiga oo dhammaan wax allaala waxay doonaan la siin lahaa, arlada waa lagu kibri lahaa. baahidu way fiican tahay, dadkay celisaa, faqriga dadkuu celiyaa. waxyaabo fara badan oo qofka caarid ahoo ku yimaada, waxyaabaha kibirka ayuu ka celinayaa. saa darteed buu ilaah leeyahay, walow basata allaahu hadduu ilaahay u fidin lahaa arrisqa, risqiga licibaadihi addoommadiisa labaqow way xadgudbi lahaayeenba, qooq iyo kibir bay ku samayn lahaayeen fil ardi arlada dhexdeeda. walaakin yunazilu, laakiin ilaahay biqadarin buu soo dejinayaa maa yashaa'u uu doono. innahu ilaahay bicibaadihi addoommadiisa khabiirun, alla khabiir ahoo og waaye. basiirun waa alla basiir ahoo arkaa waxyaabaha ay samaynayaan. waxay ku habboon yihiin buu khabiir ku yahay, guntoodii salkoodana og yahay. wa huwa ilaahay alladii ilaahii waaye yunazilu soo dejiyey alghaytha roobka min bacdi maa qanatuu markii ay quusteen ka bacdi. wayanshuru una fidiya ilaahay raxmatahu naxariistiisa. wa huwa ilaahay alwaliyu wa alla weli ah, alxamiidu oo la mahdiyo subxaanahu wa tacaala. alla weli ahoo umuurahooda tawaliya oo maamulo waaye. ilaahay waa xamiid subxaanahu wa tacaala, waa alla mahad iskaloo la mahdiyo. ummadoo dhan hadday mahdiyaanna mahad buu leeyahay, hadday diidaan mahaddii inay ku mahdiyaanna ilaahay mahad buu leeyahay subxaanahu wa tacaala. sidaa darteed baa ilaahay wuxuu noqday macbuudka roobka ka soo dejiya samada markii ay dadku quustaan ka bacdi. waa markii abaari timaado, waa markii dadka khaxtiga uu ku dhaco, waa markii la quusta kadib. wahuwa asagu alladii
waa midka yunazilu alghaytha haythka soo dejiya. hayth waxaa la yidhahdaa roobka marka uu yimaado ayadoo dadku baaba ay ku jiraan, wax la cuno ma laha, wax u duugan ma leh, bakaar u duugan ma laha. roobka xilligaa yimaadaa hayth la yidhaahdaa, waa gargaar. ummadoo baaba'sanoo dhib weyn ku jirta roobka yimaada waaye haythka. ilaahay waa midka soo dejiya alghaytha min bacdi maa qanatuu, markay quusteen kadib, markii ay ka quusteen oo ay isdhaheen roob damba maba soo socdaba, abaarta loo dhidhimanayo, baahi iyo mashaakil ay jirto, yuu ilaahay ku soo dejiyaa roob gargaar ah. wayanshuru, ilaahay wuxuu u fidinayaa raxmatahu naxariistiisa. ilaahay waa midka fidiya, wayanshuru raxmatahu naxariistiisana u fidiya. wahuwa alwaliyu, waa alla weli ah oo umuurahooda tawaliya, waa allaha maamula. alxamiidu, ee xamiidkee la mahdiyo. wa min aayaatihi, aayaadkiisa waxaa ka mid ah khalqu samaawaati, samaawaadka abuurkooda, iyo waalardi arlada, iyo wamaa kii baha alla uu firdhiyey fiihimaa dhexdooda. waa samaawaadkii arlada gudahooda oo min daabbatin wax tukubaya ah. daaba wax kasta oo socdo oo noola ah. wahuwa ilaahay calaa jamcihim, soo ururintooda inuu soo jamciyo dushooda, idaa yashaa'u haddii uu doono, qadiirun, waa kii kara subxaanahu wa tacaala. aayaadka lagu garta waxdaaniyada iyo jiritaanka ilaahay. awoodda rabbi waxaa ka mid ah samaawaadkii arlada waaweyn ee aad u jeedaan abuurkooda. wa min aayaatihi, ilaahay aayaadkiisa lagu aqoonsada jiritaankiisii waxdaaniyadiisa waxaa ka mid ah khalqu samaawaati, khalqiga iyo abuurka samaawaadkii, waalardika arlada, iyo wamaa kii baha uu ku dhex firdhiyey fiihimaa gudahooda oo min daabbatin daaba ah. wax walboo khalqi oo ilaahay abuuray subxaanahu wa tacaala, waa wixii arlada ku tukubaya iyo wixii samada ku tukubayaba. daabad markaa ah mar baa loo isticmaalaa wixii afar ku socod ah, laakiin waa wax allaala wixii ilaahay uu ku dhex firdhiyey ee uu ku dhex qalqay oo min daabbatin daabad markaa ah. wa huwa ilaahay calaa jamcihim, jamcintooda uu soo jamciya, idaa yashaa'u haddii uu doono, ama xilligii uu doono marka la gaaray in lasoo jamciyo qiyaamo laysugu keeno. qadiirun, waa kii kari kara ilaahay subxaanahu wa tacaala. wamaa asaabakum, wixii idin asiiba oo idinku dhaca oo min musiibatin, musiibo iyo jab ama imtixaan dhib ah fa bimaa kasabat, waa waxay kasbatay aydiikum, gacmihiina, waa waxaad gacmihiina ku kasbateen. wax allaala wixii musiibo ah oo imtixaan ah oo cudur ah oo abaar ah oo cabsi ah oo dhibaatooyin ah, waa musiibo dhammaanteed. wixii idinka asiibaa jiho kale idinkagama imaanin, ee fa bimaa kasabat aydiikum, waa wixii gacmihiina aad ku kasbateen, waxaad idinka la timideen jazihiisii waaye. wayacfu can kahiirin, in badan xaggeedana rabbi wuu cafin subxaana wa tacaala. wayacfu, wuxuu saamaxayaa ilaahay uusan idinku qabanin can kahiirin, wax badan xaggooda. inta la dhaafayaaba ka badanba inta yaree dadka lagu imtixaamayo, oo waxay ayagu gacmahoodu kasbadeen ilaahay jazahaan uu u siinayo. xaaladda noocaasa waxaaba ka badanba inta ilaahay cafinaya subxaana wa tacaala. waayo haddaan waxba la cafin lahayn oo ilaahay sidii aan u samaynan loo qaban lahaa, arlada wax joogi lahaa maba jiraba. daaba kuma socoteen. wamaa asaabakum, wixii idin asiibo idinku dhaca oo min musiibatin, musiibo xaggeeda ah, fa bimaa kasabat, wixii ay kasbatay sababteeda waaye aydiikum, gacmihiina, waa waxaad idinka gacmihiina ku kasbateen ood ku shaqaysateen. wayacfuu, wuu dhaafaa ilaahay, wuxuu saamaxayaa, uu cafinayaa can kahiirin, wax badan xaggooda. wamaa antum, idinkuna ma tihiin bimucjiziina, kuwa ku cajis gelin kara alla fil ardi, arlada gudaheeda. mucjiska macnaha kuwa fakan kara oo baxsan karaa markaa ma tihiin. wamaa antum, mana tihiin bimucjiziina, haddii rabbi idinku talagalay inuu musiibo idin saaro kama baxsan kartaan. ilaahay wuu idin qaban subxaana wa tacaala. saa darteed baa la tilmaamayaa inaadan idinkuna ahayn, ama naloo tilmaamayaa kuwa fakan kara oo arlada ku dhuuman kara oo ilaahay ku cajis gelin kara inaanan ahayn. wamaa antum, idinkuna ma tihiin bimucjiziina, kuwa ku cajis gelin karaoo ku fakan kara fil ardi, arlada dhexdeeda. wamaa lakum, idinmana sugnaanin min duuni illaahi, ilaahay sukadiisa min waliyin, wax weli ah
walaa nasiirin iyo wax kaa nasiir ah. weliga waa qof umuuraha tawaliya, qof idin maamula, iyo wax nasiir ahoo alla ka soo haray alla sukadiisa ahna ma lihidiina ogaada. maamulkiinoo dhan ilaahay baa haysta subxaana wa tacaala. nasiir iyo gargaaran alla ahayn ma lihidiin, idan ogaada inaadan fakan karin. haddii maamulkiina lahaayo ma jirto daabad ilaa ilaahay baa aakhidu binaasiyatihaa foodeeda haaya. ilaahay waa midka maamulaya subxaana wa tacaala. idan wamaa antum bimucjiziina, kuwa ku cajis gelin kara ilaahayna ma tihiin oo kaga fakan kara fil ardi arlada dhexdeeda. wamaa lakum idinmana sugnaanin min duuni illaahi ilaahay sukadiisa min waliyin walaa nasiirin, wax weli ahoo idin maamula iyo wax nasiir ahoo markaa idin gargaara. wa min aayaatihi ilaahay aayaadkiisa waxaa kaloo ka mida aljawaari, doomaha soconaya, filbaxri badda dhexdeeda oo aad moodda kal aclaami sidii buur oo kale, saas u dhex qotonta oo dheer. markaad meel dheer ka soo fiiriso doonyaha qaastan kuwa shiraaca lahaa waxaad u malaysaa aclaam oo kale, calamo, amase sidii buuro oo kale markaa ku ah. ilaahay aayaadkiisay ka mid yihiin. in yasha haddii uu doono ilaahay yuskini wuxuu xasilinayaa alriixa dabayshii, fayadalalna markaasay ahaanayaan doomihii rawaakida kuwa dhex qotomoo ku dhex taagtaagan calaa dahrihi badda dahrigeeda, dhabarkeeda, badda dusheeda iyo iska istaagayaan. ilayn doontii wadi lahayd oo dhaqaajin lahayd, macnaha dabayshii dhaqaajin lahayd oo wadi lahayd baa la istaajiyey. saa darteed bay iska dhex qotomayaana iska dhex taagtaagnaanayaan badda dahrigeeda ama dhabarkeeda ama dusheedaba. inna fii daalika arrintaa la aayaatin, aayaad baa ku jira, yay ugu jiraan, likulli sabbaarin mid sabar badan dhammaantii, shakuurin oo shukrin badan. haddana wuxuu sabrayaa cinda albalaa, iyo musiibadu markay dhacdo waa shukrinayaa markuu rakhaha iyo caafimaadka arko iyo wanaagga. haddii doontaa lagu dhibaateeyo oo ilaahay subxaana wa tacaala ku imtixaamana wuu ku sabrayaa. haddii sama iyo badbaado uu ku soo badbaadou xeebtu yimaaduu ka soo degana wuu shukrinayaa. addoonka noocaas ah ayaa aayadi ugu jirtaa. wa min aayaatihi ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid ah lagu aqoonsado awooddiisa iyo jiritaankiisa iyo inuu ilaahay xaq yahay. aljawaari, asifr aljawaar waa doomaha dareeraya, kuwa jawaartii doomaha soconaya filbaxri badda dhexdeeda oo aad moodda kal aclaami sidii buuro oo kale u taagtaagan. doonyaha noocaasa waxay ku socdaan dabayl. in yasha hadduu doono ilaahay yuskini wuxuu xasilinayaa, wuxuu istaajinayaa alriixa dabayshii. maxaa wadaya marka? doontii ma soconayso, doontii way istaagaysaa. fayadalalna waxay ahaanayaan rawaakida kuwa ku dhex qotomo oo iska dhex taagtaagan calaa dahrihi badda dhabarkeeda. badda dahrigeeday iska istaagayaan, ma soconayaan, meel ay u dhaqaaqaysa ma laha. inna fii daalika arrintaa la aayaatin, aayaad baa ku sugan, likulli sabbaarin mid sabar badan dhammaantii bay ugu sugan yihiin, shakuurin oo haddana shukrin badan. sabir badne oo shukrin badan yay aayaad markaa ugu jirtaa. waa laga yaabaa hadda in mashiin loo sameeyey ama motoor iyo waxyaaba noocaasoo markaa dhaqaajiya. taa laftigeeda waa awood ilaah subxaana wa tacaala. hadduu doono motoorkii baa la istaajinayaa, cilad baaba gashayba. markii hore dabeylahaasaa la isticmaali jiray, hadduu doono dabaylihii buu ilaahay xasilin subxaana wa tacaala. dabaylihii baa la istaajinayaa. in yasha yuskini riixa fayadalalna rawaakida waxay ahaanayaan kuwa iska dhex taagtaagan calaa dahrihi, waa dahri lbaxr, badda dhabarkeeda. inna fii daalika arrintaa la aayaatin likulli sabbaarin mid sabar badan dhammaantii bay aayad ugu jiraan. haddana shakuurin, shakuur ahoo shukrin badan. ow amase yuubiqhunna wuu halaagi ilaa subxaana wa tacaala, wuxuu ku halaagayaa bimaa kasabuu wixii ay kasbadeen. wayacfu can kahiirin, in badan ilahi wuu ka cafin subxaana wa tacaala. haddee marna dabayshii baa la istaajinayaa, markaas iska dhex istaagayaan. haddii la doonana dabayl halaagtaa lagu soo dirayaa. ow amase yuubiqhunna ilaahi wuu ku halaagayaa dabayl halaagta oo xoog lahoo ayadoo dhan gedisa oo baabi'isoo badda ku qarqisa yuu ilaahay u soo diri. oo bimaa kasabuu ah wixii ay kasbadeen. dhibaatooyinka ku dhaca maraakiibta gobol ka mid ah, doonaha, baabuurta, dayaaradaha, waxaasoo dhan buu ilaah isku halaagay subxaana wa tacaala.
haddii uu doono saasuu ilaahay samaynaya subxaana wa tacaala. hadduu doono wuu halaagayaa ilaahay, ow yuubiqhunna bimaa kasabuu. taasi lagu halaagaya iyo dhibkaa ku dhacayana dulmi ilaahay ku dulminaya ma aha, waa haddii ay kasbadeen oo ay la yimaadeen asbaab lagu halaago. wayacfu wuxuu ka cafin ilaahay can kaiirin wax fara badan. wayaclama aladiina kuwii waxay ogaanayaan yujaadiluuna doodahayay fii aayaatina aayaadkeenna ku murmaayey maa lahum inaysan u sugnayn min maxiisin meel lagu fakado, min maxiis oo xisni ahaan iyo gabbaati ahaan loo galo inaysan jirin. taasay markaa ogaanayaan dadkii doodahayay aayaadka ilaahay. mar allaala markay doomiyaha ku safraan sida qur'aanka noo keeni doono, haddii ay sii dabayl diibahoo wanaagsan ay ku socdaan, saasay xaaladoodu tahay. haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu talagala dhibaatii arrimooyinna way qaylinayaan, markaasay leeyihiin ilaahay hadduuna badbaadiyo waxaan ahaan lahayn kuwa shaakiriinta ah. mar allaala marka badda laga soo koriyo dhibaatadeedana idaa hum yushrikuun, idaa hum birabbihim yushrikuun, markaasay rabbigood u sharig yeelayaan. xaaladdaa marka waxay tilmaamaysaa dhibkaa markuu jiro oo doomaha dabaylo isku halaaga ama mawjad lagu kiciyo oo ayagoo dhan ay ku dhex qarqismoonayaan, waxay ogaanayaan dadka doodayay aayaadkeenna inkiraayay diinteenna aan oggolayn xilligaa ay ku dhex jiraan halaaga iyo muubiqa dhexdiisa, maa lahum inaysan u sugnaanin ama aysan lahayn min maxiisin meel loo fakado, meel maxiisoo markaa loo cararo xaggeeda. famaa uutiitum wixii laydin siiyey oo min shay-in shay ah, wax uun ha ahaado, fa mataacu alxayaati addunyaa, waa nolosha adduunka mataacdeeda. fa mataacu lxayaati addunyaa, xayaatadan dhow mataacdeeda waayabuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala. wax walba oo qofka la siiyo, ama owlaad ah, ama caafimaad ah, ama xoolo ah, ama dahab ah, ama baabuuro ah, wax walba oo shay ah oo lagu siiyo waa raaxada adduunka. famaa uutiitum wixii laydin siiyey ama laydin siiyo oo min shay-in shay ah, fa mataacu alxayaati addunyaa, xayaatadan dhow mataacdeedii waaye, way dhammaanayaan, meel bay ku eg yihiin, waa mataac. wamaa cinda allaahi waxa ilaahay agtiisa ahaaday ayaa khayrun khayr badan, wa abqaa una baaqi ahaasho badan oo u jiritaan badan, liladiina kuwii bay u khayr badan yihiin una baaqi ahaasho badan yihiin aamanuu rumeeyey, wa calaa rabbihim rabbigood dushiisana yatawakkaluuna talada saartay. wa calaa rabbihim rabbi dushii yatawakkaluuna tawakalaaya, dadka talada ilaahay u dhiibanaya subxaana wa tacaala, oo marnaba aan naftooda ictimaadaynin, aan axad kale ictimaadaynin, ayagoo dadaalaya oo asbaab kasta la imaanaya oo wixii wax loogu qaban lahaa la imaanaya, yay haddana ilaahay talada u dhiibanaya subxaana wa tacaala. wa calaa rabbihim yatawakkaluuna, rabbigoodna tala saartaa. wamaa cinda allaahi wixii ilaahay agtiisa ahaaday ayaa khayrun wa abqaa, u khayr badan una baaqi ahaasho badan, liladiina aamanuu kuwa rumeeyey, wa calaa rabbihim rabbigoodana yatawakkaluuna tala saartee talada u dhiibtay. waaladiina kuwii yajtanibuuna ka fogaanahayay kabaa'ira alithmi, dembiga kiisa waaweyn iyo walfawaaxisha ceebta, kuwa noocaas ah ayaa u khayr badan waxa ilaahay agtiisa ahaaday. waaladiina dadka u khayrka badan waxa ilaahay agtiisa ahaaday waxay yihiin waaladiina kuwa yajtanibuuna ka fogaanaya kabaa'ira alithmi, dembiga kiisa ugu waaweyn ee la galo waa shirkiga, waalfawaaxisha waa waxa ceebta ah ee fuxshigae foolxumada ah waa zinada. wa idaa maa qadibuu markay caroodaanna hum yakfiruuna, cafinaya dadkoo saamaxaya. tilmaamaha lagu yaqaano waaye dadka ilaahay agtiisa waxa yaalla u khayr badan, waxaa lagu yaqaanaa rabbi ilaahay bay rumeeyaan subxaana wa tacaala. teeda kale rabbi ayay talada u dhiibtaan, midda kale waxay ka fogaadaan dunuubta la gala iyo ifmigii dembiga kuwooda ugu waaweyn. yaryarka waan soo marnay, yajtanibuuna kabaa'ira alithmi waalfawaaxisha ila allamam, yaryarka maahane, waayo ina rabbaka waasicu almakfira, ilaahay dembi dhaafkiisa waa miduu waasic yahay. idan waaladiina waa kuwa yajtanibuuna ka fogaanahayay kabaa'ira alithmi, dembiga kiisa waaweyn iyo waalfawaaxisha
fawaaxishtii wixii foolxumo ah oo ceeb ah oo diintu ay markaa diiday. wa idaa maa qadibuu markay caroodaan markay xanaaqaan dadka ilaahay agtiisa waxa yaala u khayr badan hum yakfiruuna way dhaafaan. dadkii dhibka gaarsiiyey ka xanaajiyey ay iska cafiyaan. waa sifo aad iyo aad u fiican. waa arrin muhiim ah oo loo baahan yahay dadku inay aad ugu sifoobaan, laakiin maanta ay yar tahay in la helo. sidaa darteed baa waxaa loo baahan yahay qofku markuu caroodo ama xanaaqo, waayo qofkan waa aadami, la dhihi maayo haba xanaaqin. xadiiska nebiga intii ninka u yimid yidhi yaa rasuula allaahi awsiinii ii dardaaran, nebigana uu yidhi laa taqdab ha caroonin, macnaha lagama wada xanaaq oo dhan yuusan ku qabanin. ha caroonin loolama jeeda caroo dhan yaysan ku qabanin. bani aadam baa tahay, dhib baa lagu gaarsiin karaa, mashaakil baa lagula deegsan karaa, dembi aadan gelin baa dusha lagaa saari karaa, arrimooyin fara badan oo aad ka xanaaqdaan lagugu samayn karaa. idan ilaahay wuxuu tilmaamayaa markay caroodaan ayay saamaxaan oo caradoodu waxa ay farayso ma sameeyaan. ummadda kuma samayn. dadaa markay xanaaqaan wax allaala waxay doonaan afkooda ka soo baxaya, ama diin ha caayaano ama si kale ha ku gaarsiiyaano. dadaa markay xanaaqaan wax allaala waxa gacantooda ku jira aan kaagala gabanaynin. taa waay waxa la diidaayo. waa la xanaaqi karaa, qofku wuu caroon karaa, waayo sifooyinka jannada lagu galaba waxaa ka mid ah sida ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala yunfiquuna fi saraa'i waaddaraa waalkaadimiina alghayd. ma caroodaan lama dhin, laakiin caradooday caburiyaan. waalcaafiina can innaas, dadkana way iska cafiyaan. sidaa darteed buu ilaahay tilmaamayaa dembiyaada kuwa ugu waaweyn inay ka fogaanayaan iyo fawaaxishta. mar allaala markay xanaaqaanna hum yakfiruuna waa kuwa dhaafa, way saamaxaan dadkii markaa ka xanaajiyey. waaladiina waxaa kaloo lagu yaqaanaa waaladiina waa kuwa istajaabuu ajiibay lirabbihim rabbigood. waaladiina istajaabuu lirabbihim rabbigood ayay ajiibeen, way maqleen, amarkiisay ajiibeen, wuxuu u diray ayay qaateen oo ay yeeleen. wa aqaamuu asalaata, salaadana hagaajiya. wa amruhum amarkooda waa shuuraa, shuura iyo isla tashi baynahum dhexdooda ah. waxaa aad loogu ammaanayaa keligii talayaalayaal inaysan markaa ahayn, inay yihiin arrintooda arrin shuura ah. waxyaabo ay ka tashadayaan ay ka shawrayaan waaye arrintooda. wa mimaa rasaqnaahum wixii aan ku arsuqnay qayb ka mid ahna yunfiquuna waa kuwa baxsanaya. waa kuwa qayb ka mida wixii aan sina nafaqaynaya oo masaakiinta ku taageeraya oo keligood cunayaalna aan markaa ahayn. waxaa lagu yaqaanaa inay ilaahay ajiibaan. waaladiina istajaabuu lirabbihim wa aqaamuu asalaata, salaadana way toosiyaan. salaaday tukadaan mehe way iqaameeyaan, way istaajinayaan. iqaam salaa waxaa loola jeedaa marka rukuucdeeda iyo shuruudeedii, arkaanteeda iyo hanaankeeda iyo hay-addeeda iyo waxay u baahneed loo dhammaystiro. wa amruhum arrintooda, amarkooda waa shuuraa baynahum, isla tashi dhexdooda ah. arrintaana nala soo gudboonaatee maxaan samaynaa? xataa nebigaa samayn jiray sala allahu calayhi wasalam. marna amar lagu siiyey, fa bimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalb lanfaduu min xawlika. naxariis ilaahay xaggiisa kaaga ahaataad ugu jilicsanaatay, ee haddaad ahaan lahayd nin akhlaaq xun oo qalbi adag way kaa kala ordi lahaayeen buu dhahay ilaahay subxaanah wa tacaala. facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamri. iska cafi, ilaahayna dembi dhaaf u weydii, arrintana kala tasho. abubakaroo maxaan ka samaynaa buu dhihi jiray. cumarow arrintaan maxaan ka samaynaa? saxaabada intuu u yeedhuu dhihi jiray barnaamijkan baa jiray see yeelnaa. xataa mararka gobol ka mida arrin asaga uu ra'yi ahaan arkaayey ayuu ka tanasuli jiray nebiga. inta uu ka tago yaa saxaabada hadalkii ay dhaheen marka uu qaadan jiray. waa wixii aan waxyi lagu cabbirin, waa wixii aan waxyi lagu tilmaamin. ama haddii waxyi soo dego oo ilaahay sidaa ha la yeelo uu yidhaahdo, arrintu way go'an tahay. arrintu ka daba hadal ma jirto. sidaa darteed ayaa wuxuu tilmaamayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala mar allaala markaad arrin goosataan xataa fa idaa casamta fatawakal cala allah, ayadoo la shuureeyey oo ummaddii isku timid intii mataqaanaa ra'yi u saaxiib ah, ahluddiin u saaxiib ah, khayr iyo wanaag u saaxiib ah, go'aankii ay keeneen laftigeeda rabbi baa loo baltala saaran subxaanahu wa tacaala. waana lagu khasaari karaa,
waana lagu faa'iidi karaa. saa darteed buu ilaahay yidhi wa amruhum shuuraa, amarkoodii arrintoodu waa shuura, waa isla tashi baynahum ayaga dhexdooda ahaatay. wa mimaa rasaqnaahum wixii aan ku arsuqnay xaggeeda qayb ka mid ahna yunfiquuna waa kuwa baxsanaya nafaqaynaya. waaladiina dadka ilaahay agtiisa waxa yaala u khayr badan una baaqi ahaasho badan waa kuwa idaa asaabahum albaqyu baqyi hadduu asiibo gardarsi xadgudub hum yantasiruuna gargaarsan karaa, hum yantasiruuna way nusraysan karaan, way guulaysanayaan, way adkaanayaan. waa qolo mar allaala marka baqyi iyo xadgudub iyo gardaro lagu sameeyo gargaarsan karoo tabar leh dadkana iska celiya. muslimiinta waxaa lagu ammaanayaa inay sabir badan yihiin oo qof allaala qofkii dhib gaarsiiye oo ka caraysiiye xataa ay saamaxayaan. laakiin dad baa waxay kuu malaynayaan inaad doqon iyo nacas iyo fulay aad markaa tahay. dadka noocaasi kuma jiraan. markaasuu mar kasta gardarro iyo dulmiyuu kula imaanaya, xoolahaagii uu qaato, uu ku dhibaateeyo. haddii laakiin arrintu ay noocaa noqoto waa dad tabar leh, waa dad wax iska celin kara, waa rag akhyaar ah, waa rijaal, waa geesiyaal. mar allaala marka baqyi iyo xadgudub asiibo oo dadka gobol ka mida ay u qaataan cafinta la cafinayaba inay tabardarri iyo cabsi u geynayso, way gargaarsanayaan, markaa way guulaysanayaan, way ka adkaanayaan. waaladiina idaa asaabahum albaqyu waa qola haddii baqyi iyo xadgudub iyo gardarsi uu asiibo oo lagu tilmaamoo lagu sameeyo hum ayagu yantasiruuna gargaarsan kara, adkaan kara oo ka guulaysanaya, iska celinaya. macnaha way iska celinayaan haddii mararka gobol ka mid ah dadku ay ku talagalaan inay dhibaato gaarsiiyaan. waayo wa jazaa'u sayi'atin sayi'a abaalkeeda iyo jazaheedu sayi'atun waa sayi'a iyo xumaan midluhaa ayadoo kale ah, tii lagu sameeyey oo kale. sayi'ada dambe sayi'aad iyo xumaan ku noqon maysee ayaga ayaa dadkii hore markii qofka dulmiga bilaabayay yuu sayi'a la yimid. abaalgudkii iyo muqaabalkii lagula samaynayey iyo aargudashadii yuu ilaahay ku tilmaamayaa waa sayi'a iyo xumaan intii oo kale markaa ah. intii lagu sameeyey uga badin maayaan dadka, intii lagu sameeyey unbay ku samaynayaan. midluhaa hal haddii la gaarsiiye hal bay gaarsiin, hal mar haddii la caayo hal mar bay caynayaan. hadday rabaan inay gargaarsadaan macnaha waa haddii ay rabaan inay dadka ka aargutaan, waa haddii ay rabaan inay iska celiyaan. ilaa ilaahay tilmaamay laa yuxibbu allaahu aljahra bisuu'i min alqowl, ilaahay ma jecla jahar lala jahra xumaan hadal ah ilaa man dulim, qofkii la dulmiye maahane wuu aarsan karaa. wa kaana allaahu samiican caliiman, waa ilaahay waa alla maqlid badan oo cilmi badan. in tubduu khayran aw tukhfuuhu aw tacfuu can suu'in fa ina allaha kaana cafuwan qadiiran. haddaad muujisaan khayr ama aad qarisaan ama dulmi iyo xumaan laydinku sameeyey aad cafisaan, ilaahay baaba cafin badna ah, qadiir ahoo wax kasta kari karaa. marka dadka muslimiinta ah ee iimaanka leh ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsadee ilaahay agtiisa waxa yaala u khayr iyo baaqi ahaasho badanba ma aha nasriga iyo dhaafitaanka iyo imtiqaana xadgudubkaa lagu sameeyey dadka cafinayaan inay tabardarri u geysay. waa waxay cafi iyo fadli ku raadinayaan. qofka cafinta cizi bay u siyaadisaa. mar walbo inta lagu dulmiyo aad cafiso kor buu ilaahay buu kuu qaaday subxaana wa tacaala. tawaaduc qofkuu tawaaduco ilaahay rafci buu u qaadaa, kor buu u qaadaa mar walba. saa darteed ayaa dadka muslimiinta cafinta ay cafinayaan ilaahay tilmaamayaa inaysan tabardarri u geynin, ay yihiin dad wax iska celin kara, ay yihiin dad gargaarsan kara, ay yihiin dad cizi leh, ay yihiin dad karaamo iyo sharaf leh. laakiin cafintaas alle xaggiisa ayay khayr iyo wanaag uga dalbayaan. wa jazaa'u sayi'atin sayi'o iyo xumaan abaalgudkeeda iyo jazaheeda sayi'atun waa sayi'o kaloo midluhaa ayadoo kale markaa ah. hal mar haddii lagu caayo hal mar caay, labada iscaysa buu dhahay nebiga sal allau alayh wasalam. waxay labaduba dhahaan kii cayda bilaabay iyo kii la caayey aarsaday, labada hadal ee meesha ka yimid baadiga dushiisay ahaatay. ninka cayda bilaabaa labada dembiba loo qoraa. markaad adiga aargudato oo intii uu ku yidhi aadan uga badinin, labada dembi kii wax bilaaba iska leh. hadduusan xadgudbin midka madluumka ah ee ninka cayda lagu bilaabay, midka cayda lagu bilaabay hadduusan xadgudbin, idan labadaba ka cayda bilaabaa qaadanaya. hal cay buu ku yidhi
markaasaad 5 ugu jawaabtay 6 baad uga dhigtay haddii kale ninba wuxuu kasbaduu leeyahay laakiin intaad dhahday intuu ku dhahay oo kale haddaad ugu jawaabto oo aadan u badinin labada dembi asagaa qaadanaya adiguna wax markaa ma lihid wajazaa'u sayi'atin sayi'atun mithluhaa faman cafaa laakiin qofkii cafiya wa aslaxa arrintiisa islaaxiyo wanaajiya oo xumaantii islaax iyo wanaag ku beddelaa fa ajruhu ka ajirkiisa cala allaahi alla korkiisuu ahaaday kaasi yaa abaalgudi karoon ilaahay ahayn subxaana wa tacaala inta la dulmiye cafiyey inta la xumeeyey islaax ku beddelay arrintii wanaajiyey qof abaalgud siin kara oo wax u dhigma oo qof kaa qanciya oo abaalgud u noqda siin kara adduunka joogaaye ma jiro ilaa ilaahay maahane subxaana wa tacaala fa ajruhu ajirkiisuu cala allaahi alla dushiisuu ku dhacay innahu ilaahay laa yuxibu aldaalimiin daalimiinta ma jecla walaman intasara qofkii gargaarsada bacda dulmihi dulmi lagu sameeyey ka bacdi fa ulaa'ika kuwaasi maa calayhim korkooda min sabiilin wax wadda ah ama wax dembi ah ama wax lagu xujeeyo intaba markaa ma laha qofkii isnasreeya qofkii gargaarsada qofkii aarsada walaman intasara qofkii aarsada walaman intasara qofkii guulaysta oo ka guulaysta qof dulmiyey oo asagoo gargaarsanaya ka adkaada bacda dulmihi markii la dulmiyey ka bacdi waa la dulmiyey wuu aarsaday wax dembiya ma laha waatan hadda tilmaannay labadaba wixii ay dhahaan ama waxa la sameeyo qofka bilaabaa dushiisu ay tahay fa ulaa'ika kuwaasi maa calayhim korkooda min sabiilin wax wadda ah ama wax dembi ah oo dembi loogu qoriyo wadda dembi loogu qoro ama lagu gardaro ama lagu cadaabo ama dembi loogu qoraayo markaa ma jiro inama asabiilu jidkase cala aladiina kuwii korkooda ayuu ahaaday yadlimuuna annaasa dadka dulminaya wayabaquuna dalbayo ku soconaya fi lardi arlada dhexdeeda bigayri alxaqi xaq la'aan ulaa'ika kuwaasi lahum waxa ay leeyihiin cadaabun cadaabkaasoo aliimun xanuun badan cadaab aliim ahoo kakan oo xanuun badan bay leeyihiin buu yidhi ilah subxaana wa tacaala yaa waaye waa dadka dulmiga ummadda ku samaynaya waa dadka laga joogi la'yahay waa dadkay bani aadamku ka ammaan heli la'yihiin inama asabiilu waddadu waxaa xujada ah iyo sabiilka dembiga loogu qoro iyo waxa lagu cadaabayo oo dembi ay ku mutaysanayaan in kale ma aha kuwii aarsaday ma ahee cala aladiina yadlimuuna annaasa waa kuwa dadka dulminaya wayabaquuna fi lardi arladana ku dalbayo ku soconaya bigayri alxaqi xaq la'aan ulaa'ika kuwaasi lahum cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabkaasoo aliimun xanuun badan walaman sabara qofkii sabra wagafara iska cafiyo iska dhaafa dadkii dulmiyey inna daalika arrintaas sabirkii dhaafidda ah la min casmi alumuur waa umuurta midda la goosto midda la doorto waa ayada sabirka iyo dhaafidda waa casmi alumuur or amuurta midda la casmiyee la go'aansadee la doorto taasaa markaa ah ayadaa ugu fiican uguna qiimo badan waman yudlil illaahu qofkuu ilaahay dhumiyo famaa lahu uma sugnaankaa min weliyin weli iyo wax tawaliya arrintiisoo maamula min bacdihi dhumintii ilaahay kadib markuu ilaahay dhumiyey ee uu baadiyeeyey kadib uma sugnaanin wax weli ah oo arrintiisa tawaliya wax u tara wax hanuunin kara wa tara aldaalimiina daalimiintii baad arkaysaa lammaa raawu alcadaaba markay cadaabkii arkeen yaquuluuna inay odhanayaan hal ilaa maraddin noqosho xaggeeda min sabiilin wadda ma u helaynaa wadda lagu noqdo ma jirtaa maanta fa hal ilaa khuruujin min sabiil baa noo imaan doonta saa darteed buu ilaahay tilmaamayaa dadka daalimiinta ah ee ilaahay diintiisii ka leexday ummadda dulmiyey naftoodii dulmiyey diintii dulmiyey markay cadaabka arkaan qiyaamaha inay odhanayaan inaan noqonaan rabnaa adduunkana loo celiyee wadda lagu noqdaayo markaa ma jirtaa yaquuluuna inay odhanayaan hal ilaa maraddin min sabiil hal min sabiilin wadda ma u helaynaa ilaa maraddin noqosho xaggeeda noqosho aan noqono oo aan adduunkii dib ugu noqono oon dulmigii iska dhaafno oon dad fiicfiican noqono wadda lagu noqdaayo markaa ma jirtaa saasay markaa odhanayaan wa taraahum waxaad arkaysaa yucraduuna in loo bandhigaya calayha korkeeda naartii baa loo bandhigaya daalimiinta khaashiciina xaalo ay yihiin kuwii khushuucsan min adulli dulli xaggiisay u khushuucsan yihiin dulliga saaran sababtiisa yay la khushuucayaan yanduruuna way eegayaan naartii bay fiirinayaan
min طarfin khafiyin il qarsoodiya ku fiirna طarf eegid bay fiirinayaan khafiyin oo qarsoodi ah ilaa cadaabka indhaha kuma wada taagi karaan waxaad ka cabsanaysa xoog looma fiiriyo ilqoor iyo il baa loo fiiriyaa tartiib tartiib saasay naartii u eegayaan wa qaala aladiina kuwii waxay odhanayaan ama ay yidhaahdeenba aamanuu rumeeyey ina alkhaasiriina khaasiriinta kuwa khasaaray aladiina waa kuwii khasiruu khasaaray anfusahum nafyaalkooda wa ahliihim iyo ehelkoodaba khasaaray yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo kuwa khasaaray waa kuwa naftooda iyo ehelkoodaba ka khasaaray inay janno helaan ka khasaaray in nimcada la siiyo naar iyo cadaab mutaystay alaa hooyaay ina aldaalimiina daalimiintu fii cadaabin cadaab bay ku jiraan cadaabkaasoo muqiimin joogta ah cadaab muqiim ahoo daa'im ah ay ku dhex nagaanayaan kaasay daalimiintu markaa ku jiraan wa taraahum waad arkaysaa daalimiintii oo yucraduuna la bandhigayo ayagoo loo soo bandhigayo loo soo muujinayo calayhaa naartii korkeeda khaashiciina ayagoo khushuucsan weliba min adulli dulli dartii la khushuucsan dullinimada iyo rafaadka iyo liidnaanta ka muuqata waayo daalimiin bay ahaayeen way isqaadqaadi jireen ummadday dulmin jireen waxbay ku faantami jireen laakiin maanta waa daliiliin waa kuwa araadil ah waa hooseeyaan khaashiciina min adulli dulli dartii bay la khushuucayaan yanduruuna ayagoo eegaya naartii min طarfin il ku eegaya طarf khafiyin ee qarsoodi ah indhab buuxa oo naartu ay ku wada fiiriyaan ma laha wa qaala aladiina aamanuu intii mu'miniinta waxay odhanayaan ina alkhaasiriina khaasiriintii khasaartay aladiina khasiruu waa kuwii khasaaray anfusahum nafyaalkooda naftooda kuway khasaartay waaye iyo wa ahliihim eheladoodaba yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo aan diin raacin aan taaco alla ku socon aan cibaadaadka wanaajin aan dulmiga iska daynin alaa ina aldaalimiina kuwa daalimiintu fii cadaabin cadaab bay ku dhex sugan yihiin cadaabkaasoo muqiimin joogta ah wamaa kaana umana sugnaanin lahum ayaga min awliyaa'a awliye iyo wax u tawaliya oo u soo dhow yansuruunahum uga gargaarta min duuni illaahi ilaahay sokadiisa waman yudlil illaahu qofkuu ilaahay lumiyana famaa lahu uma sugnaanin kaa min sabiilin waddo uu ku hanuuno waddo khayr uu ku gaaro uma sugnaanin mana laha qofkii ilaahay baadiyeeya wamaa kaana uma ahaanin oo uma sugnaan lahum ayaga markay cadaabka muqiimka ku jiraan min awliyaa'a kuwa xiriirya ah oo ayaga u dhow oo awliye u ah yansuruunahum kuwaasoo uga gargaaraya min duuni illaahi ilaahay sokadiisa cadaabka ka soo bixin kara wanaag siin kara janno geyn kara ma laha waman yudlil illaahu qofkuu ilaahay lumiyana famaa lahu min sabiilin sabiil iyo waddo xaggeeduu ku hanuuno uma sugnaanin istajiibuu ajiiba lirabbikum rabbigiin maqloo ajiiba min qabli an ya'tiya intaysan u imaanin ka hor min qabli an ya'tiya intaysan imaanin yowmun yoon iyo maalin laa maradda noqosho lahu aysan u sugnin qofka min allaahi ilaahay xaggiisa uu ka noqdo maa lakum idinma sugnaanin min malja'in makaanu magangal yowma idin maalintaa noqosho ilaahay xaggiisa laga noqdo ama qof ilaahay xaggiisa ka celiyaaye uma sugnaanin kow ta labaad idinma sugnaanin malja iyo meel loo iisho lagu dhuntoo la magangalo yowma idin maalintaa ta saddexaad wamaa lakum idinma sugnaanin min nakiirin inkiritaan wax la inkiri kara maalintaana markaa ma jirto waayo xataa haddaad damacdo inaad wax inkirto ood isku daydo markhaatiyaal baa jooga afkii baa la dawoolayaa aad wax ku inkiri lahayd wa tukallimunaa aydiihim wa tashhadu arjuluhum lugii baa markhaati kacayo warramaya maxaad inkirtaa marka waa ma jirto intaan la gaarin maalinta hadda rabbi ajiiba war hadda iska maqla war hadda amarkiisa fuliya war hadda dad wanaagsan noqda macnaha istajiibuu lirabbikum hooy rabbigiin ajiiba oo maqla oo oggolaada min qabli an ya'tiya intaysan imaanin ka hor yowmun maalin laa maradda noqosho lahu aysan u sugnayn qofka min allaahi ilaahay xaggiisa uu ka noqdo ama ilaahay xaggiisa wax uga noqosho ah iyo wax ka celiyo adduunkii dib ugu soo celiya uusan markaa ku lahayn maa lakum min malja'in malja uma sugnaanin waa makaanu magangal meel la iisho iyo meel la galo iyo meel lagu dhunto yowma idin maalinta wamaa lakum idinma sugnaanin min nakiirin nakiir xaggii inkiritaan aad wax inkirtaan fa in acraduu haddii ay jeestaan rasuulka ilaahayow
ayadoo saa loo waaniyey xaqii loo bayaaniyey diintii loo sheegay dulmigii laga celiyey hadday xaq intay ka jeestaan ay baatil aadaan fa in acraduu famaa arsalnaaka kuma aanaan dirin calayhim korkooda xafiidan inaad ilaaliso inaad naar ka ilaaliso baadi ka ilaaliso laguma dirin adiga in calayka maa calayka dushaadana ma aha ila albalaaq gaarsiin maahane waxa laguu dira rasuulka ilaahay waa balaaq waa inaad dadka diinka gaarsiiso wa inna anagu idaa adaqna alinsaana insaanka haddaan dhadhansiino minnaa xaggeena raxmatan naxariis aan ka dhadhansiino farixa biha wuu ku farxayaa waa farxayaa buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala wa in tusibhum hadday asiibto sayi'atun xumaantaana waxay ku asiibtay dulmi ilaahay dulmiyaysan ahayn oo bimaa sababteeda ay tahay qaddamad aydiihim gacmahoodu ay u hormarsatay fa ina alinsaana insaanku kafuurun waa mid kufrin badan haddii naxariis la taabsiiya maantao dhan kama fadhinaysid waa boodboodaya waa farxaya waa qaylinaya waa tamashlaynaya waa ciyaaraya laakiin haddii musiibo yar iyo sayi-ay xumaan la taabsiiyo oo weliba ah waxay gacmahooda ku kasbatay oo ay ku shaqaysatay insaankii waa mid kufrin badan ilaahay buu diidayaa nimcadii hore loo siiyey wuu ku kufrinayaa wuxuu noqonayaa mid asagoo dhan yu'si iyo quus ku dhacaa xaaladaasaa dabciga insaanka aan wanaagsanin uu yahay fa in acraduu haddii ay jeestaan xaqa iyo diinka ay ka jeestaan famaa arsalnaaka kumaanaan dirin adiga famaa arsalnaaka ma kuu dirin calayhim korkooda xafiidan inaad xafiid ka noqoto inaad dushooda ilaalisood naar ka ilaaliso baadi ka ilaaliso hawshaada ma aha maxay tahay nebiga hawshiisa in calayka maa calayka ila albalaaq dushaadu ma aha ilaa gaarsiin maahane balaaq sameey oo diintan gaarsiiye yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik gaarsii wax rabbiga xaggiisa lagaaga soo dejiyey gaarsii buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala fain lam tafcal haddaad saa yeeli weyso famaa ballaqta risaalatahu wallaahu yacsimuka min annaas ilahay baa dadka kaa cisminaya ilaahay baa kaa dhowrayee soc nebiga ilaahayow balaaq noqo tabliiq noqo gaarsiin noqo ummadda markaa gaarsii in calayka ila albalaaq gaarsiin mooyee wax kale korkaaga ma aha wa inna anagu idaa adaqna alinsaana insaanka haddaan dhadhansiino minnaa xaggeena raxmatan naxariis farixa biha wuu ku farxayaa naxariista wa in tusibhum hadday asiibto sayi'atun xumaan oo weliba bimaa qaddamad aydiihim waxay gacmahoodu shaqaysatay horumarsatay ay tahay fa ina alinsaana insaanku kafuurun waa mid kufrin badan lilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkintooda iyo maamulkooda iyo waalardi arlada yakhluqu waa abuura ilaahay maa yashaa wixii uu doono yahabu wuxuu u hibeeyaa liman yashaau qofkii uu doono inaafan gabdho wayahabu wuxuu u hibeeyaa liman yashaau qofkii uu doono addukuura wiilal aw yusawijuhum ama wuu isugu daraa dukraanan wiilal wa inaafan iyo gabdho wayajcal wuxuu ka yeelaa man yashaau qofkii uu doono caqiiman madhala buu ka dhigaa caqiim midaan dhalin innahu ilaahay caliimun wa alla cilmi badan qadiirun kara wax kasta subxaana wa tacaala ilaahay samaawaadkii arlada mulkigoodii maamulkooda asagaa iskale lilaahi ilaahay wuxuu leeyahay oo u sugnaaday mulku asamaawaati waalardi hanashada iyo lahaashaha iyo mulkiga samaawaadkii arlada yakhluqu wuxuu abuuraa maa yashaa'u wixii uu doono yahabu wuxuu u hibeeyaa carruurta waxaad fahmaysaa wax la kasban karo oo la iibsan karoo la heli karaayo ma aha laakiin waa hibo ilaahay bixiya subxaana wa tacaala qof allaala qofkuu doonau siiyaa yahabu liman yashaa'u ilaahay wuxuu u hibeeyaa qofkuu doono inaafan dumar gabdho wayahabu liman yashaa'u qofkii uu doonana wuxuu u hibeeyaa addukuura wiilal hooye aabbaad arkaysaa gabdhooley baa la yidhaahdaa markaasay dhahaan islaantii gabdhaha lahayd hal wiil uguma jiro waa ilaahay hibadiisa subxaana wa tacaala tuwa waxay dhalaysaa wada wiilashii baa gellayda tumaaya ayagii baa dabkii shidaaya ayagii baa suuqii ka soo adeegaaya wiilal unbay taxday wiilaley baa la yidhaahdaa ayadana aw yusawijuhum ama waa isugu daraa ilaahay wuu isugu zawjeeyaa dukraanan wa inaafan qaaraa wiilal iyo gabdho la isugu daraa imise wiil baad leedahay 3 wiil 2 gabdhood 4 gabdhood iyo 1 wiil
shan wiil iyo 7 gabdhood allahuma laka alxamdu ilaahay baa bixiya subxaana wa tacaala aw yuzawijuhum dukraanan wa inaathan maxaa soo haray wayajcalu man yashaau caqiiman madhalays buu ka dhigaa ilah subxaana wa tacaala qofkuu doonana caqiim waa qofaan dhalaynin waayo haddii ilaahay caqiimnimo kuu doortay raali ku noqo waayo ilaahay waa caliim asagaa ku cilmi badan subxaana wa tacaala markaasaad arkaysaa qof aan dhalin ama gabar aan dhalin maantao dhan waa la wadayaa jarmal baa la geey waa la soo jeexay intaa la geey biyaa ku jira waa laga soo bixiyey carabtaa la geey saasaa lagu sameeyey heer waxaa la maraa haddaa leeyahay halaysku abuuro wixii xaaladda noocaasa ha lagu raali noqdo ilaahay qadihiisii qadarkiisa subxaana wa tacaala kii wiilasha keligiis la siiyeyna wuu qaylin maanta kii gabdhaha keligii la siiyeyna wuu qaylin asagana kii laysugu daray iska badaaba asaga kii caqiimka laga dhigay wax roonaanba jirinba ilaahay iimaanka hanoo sugo subxaana wa tacaala lilaahi ilaahay mulku samaawaati samaawaadka hanashadoodii baa u sugnaatay iyo walardi arlada wuu leeyahay yakhluqu wuxuu abuuraa maa yashaa wixii uu doono yahabu wuxuu u hibeeyaa liman yashaau qofkii uu doono inaathan gabdho wayahabu wuxuu u hibeeyaa liman yashaau qofkii uu doonana addukuura wiilasha aw yusawijuhum ama waa isugu zawjeeyaayo waa isugu daraa dukraanan wiilashii wa inaathan gabdhahaba wayajcalu wuxuu ka yeelaa ilaahay man yashaau qofkii uu doono caqiiman mid caqiim ahoon dhalayn ma dhala ayuu ka dhigaa ama ma dhalays innahu ilaahay caliimun wa alla cilmi badan qadiirun haddana qadiir ahoo wax kasta kari kara subxaana wa tacaala qadiir buu ku yahay waa awoodi karaa inuu ku siiyo adoo caqiim ah waa awoodi karaa ilaah subxaana wa tacaala bacdamay xaaladdu sidaa tahay arrintaasaa loo baahan yahay dadku inay markaa ogaadaan walow basad allahu hadduu ilaahay fidin lahaa arrisqa risqiga licibaadihi addoommadiisuu u fidin lahaa labaqow way qooqi lahaayeen fil ardi arlada dhexdeeday ku kibri lahaayeen walaakinse yunazilu waa dejiyaa ilaahay biqadarin in qadar go'an oo maa yashaau uu doono innahu ilaahay bicibaadihi addoommadiisa khabiirun waa kii khabiir u ahoo guntooda ogo u warrami doona haddana basiirun basiir ahoo markaa arkaya wahuwa ilaahay alladii waa macbuudkii yunazilu alghaytha roobka soo dejiya min bacdi maa qanatuu markay quusteen ka bacdi wayanshuru ilaahay wuu fidiyaa raxmatahu naxariistiisuu u soo fidiyaa wahuwa ilaahay alwaliyu waa alla weli ah alxamiidu ee markaa la mahdiyo wa min aayaatihi aayaadkiisa waxaa ka mida ilaahay khalqu samaawaati samaawaadka abuurkoodii waalardi arlada iyo wamaa wixii baha uu firdhiyey ilaahay fiihimaa gudahooda waa samaawaadkii arlada dhexdoodee oo min daabbatin daabad ah wa huwa ilaahay calaa jamcihim soo kulmintooda idaa yashaa'u haddii uu dooniyo wakhtigii uu doono qadiirun waa kii markaa kari kara wamaa asaabakum wixii idinku dhaco idin asiiba min musiibatin oo musiibo ah fa bimaa kasabad waxay kasbatay sababteeda waaye aydiikum gacmihiina wayacfuu wuxuu saamaxaa ilaahay u dhaafaa can kahiirin wax badan xaggooda wamaa antum adinkuna ma tihiin bimucjiziina kuwa ku cajis gelin kara ilaahay fil ardi arladoo uga fakan kara wamaa lakum idinma sugnaanin min duuni illaahi ilaahay sukadiisa min waliyin wax weli ah oo maamulkiina qabta walaa nasiirin iyo wax nasiir ahoo markaa idin kaalmeeya wa min aayaatihi ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid ah aljawaari doomaha ku soconaya filbaxri badda dhexdooda kal aclaami aad buuraha moodo in yasha haddii uu doono alle yuskini ariixa dabayshii buu istaajinayaa yuu xasilinayaa fayadalalna kolkaasay ahaanayaan rawaakida kuwa iska taagtaagan calaa dahrihi badda dusheeda inna fii daalika arrintaa la aayaatin aayaad baa waxay ugu jiraan likulli sabbaarin mid sabar badan dhammaantii shakuurin oo shukrin badan ow amase hadduu doono ilaahay yuubiquhunna wuu ku halaagayaaba ayagoo dhan buu dabayshii baddii dhexdeeda ayuu ku dhex halaagi wuu tiimbinayaa dhammaantood ama dabayl waxaa loo soo dirayaa halaagta bimaa kasabuu waxay kasbadeen sababteeda wayacfu wuxuu dhaafaa ilaahay uu ka saamaxaa can kahiirin wax badan xaggooda wayaclama aladiina kuwi waxay ogaanayaan markaa yujaadiluuna doodaayey fii aayaatinaa aayaadkeenna maa lahum inaysan u sugnayn min maxiisin meel ay magan galaan famaa uutiitum wixii laydin siiyo oo min shay-in shay ah fa mataacu alxayaati addunyaa noloshaan dhow raaxadeeda waay iyo xayaatada dhow mataacdeeda wamaa cinda allaahi ilaahay agtiisa wixii ahaaday ayaa khayrun khayr badan wa abqaa baaqi ahaasho badan
oo u jiritaan badan liladiina kuwii bay u khayr badan yihiin una baaqiyahaasho badan yihiin ama liladiina kuwii bay u sugnaadeen aamanuu rumeeyey wa calaa rabbihim rabbigoodna yatawakkaluuna talada u dhiibanayay waaladiina waa kuwa yajtanibuuna ka fogaanayay kabaa'ira alithmi dembiga kiisa waaweyn waalfawaaxisha iyo ceebtaba wa idaa maa gadibuu markay caroodaanna hum ayagu yakfiruuna waa kuwa dhaafoo saamaxa waaladiina istajaabuu waa kuwa ajiibay lirabbihim rabbigood wa aqaamuu asalaata salaadana oogay wa amruhum amarkoodana shuuraa waa isla tashi baynahum dhexdooda ah wa mimaa rasaqnaahum wixii aan ku arsuqnay qayb ka mid ahna yunfiquuna way nafaqaynayaan waa kuwii markaa bixiya waaladiina kuwii weeyaan idaa asaabahum albaqyu marka xadgudubka iyo gardarsiga uu asiibo oo lagu asiibo baqyi iyo xumaan iyo xadgudub hum ayagu yantasiruuna gargaaran kara caarsan kara iskana celinaya hum yantasiruuna ka guulaysanaya wa jazaa'u sayi'atin xumaan abaalgudkeeda iyo jazaheedu sayi'atun waa sayi'a iyo xumaan midluhaa ayadoo kale markaa ah faman cafaa qofkiisa iska cafiya wa aslaxa hagaajiya arrintii islaax ku dhammeeya fa ajruhu kaa abaalgudkiisii ajirkiisu cala allaahi alla dushii buu ahaaday innahu ilaahay laa yuxibbu ma jecla aldaalimiina kuwa daalimiinta ah walaman intasara qofkii gargaarsada min bacdi dulmihi dulmi lagu sameeyey kadib dulmigiisa kadib fa ulaa'ika kuwaasi maa calayhim korkoodu ma ahaanin min sabiilin wax wadda ah oo lagu xujeeyo lagu cadaabo amay dembi ku mutaystaan innama asabiilu dembigu wuxuu ahaaday cala aladiina kuwii korkooda yadlimuuna annaasa dadka dulminayay wayabaquuna dalbahayo ku soconaya fi lardi ahlada dhexdeeda bikayri alxaqi xaq la'aan ulaa'ika kuwaasi lahum waxa ay leeyihiin cadaabun cadaabkaasoo aliimun xanuun badan walaman sabara qofkii sabra oo iska sabra wagafara iska cafiye iska dhaafa dadka dhibaatada gaarsiiyey inna daalika arrintaas sabirkii dhaafidda ah la min casmi alumuuri waa umuurta midda la goosto waa midda la go'aansadee la qaato taasaa markaa ah waman yudlil illaahu qofkuu ilaahay dhumiyana famaa lahu uma sugnaa ninkaa min waliyin wax weli ah arrintiisa maamula min bacdihi ilaahay markuu dhumiye kadib wa tara aldaalimiina daalimiintii baad arki lammaa ra'awu alcadaaba markay cadaabkii arkaan yaquuluuna inay odhanayaan hal ilaa maraddin noqosho xaggeeda min sabiilin wadda ma u helaynaa wa taraahum waad arkaysaa yucraduuna ayagoo loo bandhigaayo waa daalimiintiiye calayhaa naartii korkeeda khaashiciina ayagoo khushuucsan min adulli dullinimo xaggeeda la khushuucsan yanduruuna eegayoo fiirinaya naartii min darfin aragti khafiyin ee qarsoodi ah darfin khafiyin aragti iyo eegmo qarsoodi ah il qarsoodi ah il ayay markaa ku fiirinayaan wa qaala aladiina kuwii waxay odhanayaan aamanuu rumeeyey ina alkhaasiriina kuwa khasaaray aladiina kubii waaye khasiruu anfusahum naftoodii ay khasaartay iyo wa ahlihim ehelkoodaba yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo alaa hooyay ina aldaalimiina daalimiintu fii cadaabin cadaab dhexdii bay yihiin cadaabkaasoo muqiimin joogto ah wamaa kaana lahum umana sugnaanin min wliyaa'a awliye oo yansuruunahum uga gargaarta min duuni illaahi ilaahay sukadiisa waman yudlil illaahu qofkuu ilaahay dhumiyo famaa lahu uma sugnaaninkaa min sabiilin wax wadda ah ee istajiibuu maqla ajiiba lirabbikum rabbigiin min qabli an ya'tiya intaysan imaanin ka hor yowmun maalin laa maradda noqosho lahu qofka uusan u sugnayn min allaahi ilaahay xaggiisa maa lakum idinma sugnaanin min malja'in makaanu magangal meel malja ah oo lagu dhuunto yowma idin maalintaa wamaa lakum idinma sugnaanin min nakiirin inkiritaan aad inkirtaan xumaantii wixii aad gasheen fa in acraduu haddii ay jeestaan rasuulkii allow famaa arsalnaaka kumaanaan dirin calayhim korkooda xafiidan ilaaliye inaad ka noqoto in calayka maa calayka dushaaduna ma ahaanin ila albalaaqu gaarsiin maahane wa inna anagu idaa adaqna alinsaana insaanka haddaan dhadhan siino minnaa xaggeenna raxmatan naxariis farixa bihaa wuu ku farxayaa naxariista
wain tusibhum hadday asiibto sayi'atun xumaan oo bimaa sababteeda ah qadamad ay hormarsatay aydiihim gacmahooda fa ina alinsaana insaanku kafuurun waa kii kufrinaya lilaahi ilahay waxaa u sugnaaday mulku asamaawaati samaawaadka mulkintoodii hanashadoodii maamulkooda iyo waalardi arlada yakhluqu wuxuu abuuraa maa yashaa'u wixii uu doono yahabu waa u hibeeyaa oo waa siiyaa wuu ku galladaystaa liman yashaa'u qofkii uu doono inaafan gabdha uun wayahabu wuxuu u hibeeyaa liman yashaa'u qofkii uu doonana addukuura wiilasha ama dukuur iyo lab aw yusawijuhum ama wuu isugu daraa ilaahay dukraanan wiilal iyo wa inaafan gabdhaba wayajcalu wuxuu ka yeelaa man yashaa'u qofkii uu doono caqiiman mid caqiim ahoan dhalin innahu ilaahay caliimun wa alla cilmi badan asagaa ku cilmi badan suu wax u jaangooyey qadiirun wa alla awood leh oo kari kara subxaana wa tacaala shay walba wamaa kaana libasharin an yukallimahu allahu ilaa waxyan aw min waraa'i xijaabin wabiاllahi tawfiiq allahu subxaanaه wa tacaala aclam.